badi magaalooyinka Soomaaliyeed markuu roobka da'o dhibaatooyinka ugu weyn ee ay wajahaan waa fatahaado iyo daadad galaafta nolosha tobaneeyo qof barakiciyo kumanaan sidoo kale baabi'iya hanti iyo guryaba wixii ku yaalay meelaha ay biyahani gaareen ma ahan hal iyo laba jeerba intaynu maqalnay fatahaadaan balse markasta oo lagu jiro xilli roobaad hadalhaynta ugu badan waa dad barakacay iyo kuwa guryahoodii waayay haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah marka laga yimaado qadarta alle magaalooyinkeenu ma u diyaarsan yihiin u adeegsashada roobka maxaa keenay in annaga uu sanadkii dhowr maalmood roob inoo da'o aynu la kulanno fatahaado halka dalalka sida dalalka Yurub si maalinle ah ay roobka ugu da'aan aynan u maqlin cid ka cabaadaysa saameynta uu geysto roobku sirtu waa kala duwanaanshaha qaab u samaysanka magaalooyinkeena waatan aynu ku ogaan doono muuqaalkeena maanta magacaygu waa Diin Xuseen Shacab halkani waa kanalka iftiinka kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta marka hore aynu faham guud ka qaadano qaabkay u samaysan yihiin waddooyinkeenu laamiyada aynu samaysano sida caadiga ah waxay ka kooban yihiin 3 dabaqadood dhulka caadiga ah ee la rabo in laamiga laga sameeyo ayaa la imaanayaa kadib waxaa la dhigayaa ciid jilicsan kadib waxaa xigta in lagu shubo jay kadib jaygaas ayaa lagu dul shubayaa daamur dabcan laamiyada oo dhan waxay u dhisan yihiin qaabkan laakiin waxaa jirta hal shay oo laynaga duwan yahay oo ah nidaamka biyo-shubka ama nidaamka biyaha roobka ka saaraya magaalada dabcan innaga waxaa loo sameeyaa biyo-shub caadi ah oo loogu talagalay inay biyuhu maraan oo ku samaysan hareeraha waddooyinka laakiin dhowr isbuuc kadib waxay noqdaan kuwa ay ciidu iyo qashin ku xiraan oo howlgab ah dabcan markaad u fiirsatid adiguba waad dareemi kartaa inaysan biyo-shubyadan xal u noqon karin biyaha roobku dhigaan aynu u imaano qaabka ay magaalooyinka dalal kale u xaliyeen dhibaatadan intaysan bilaabin dhismaha waddadu waxaa lasii qodaa dhinac ka mid ah hareeraha waddada tusaale ahaan waddada dhinac midig ama dhinac bidix ayaa la qodayaa qodninkan ayaa lagu xirayaa meel dhowr kilomitir u jirta oo sida barkada ah hoosna u qodan 20 ilaa 30 mitir si ay u keysamaan biyaha roobku xaafadiiba ama dhowrkii xaafadoodba waxay leeyihiin barkad ay biyuhu isagu imaadaan oo ku xiran barkad kasii weyn oo laga maamulo biyaha magaalada oo dhan kadib marka la diyaariyo barkadan iyo sidoo kaleba qodninkii hareer mariga waddada waxaa la keenayaa tuubooyin waaweyn oo badankood ka samaysan shub waxaa la gelinayaa qodninkii loo sii diyaariyey ee dhinac maraya waddada taasoo si toos ah ugu xirmaysa barkad weyn dabcan waddooyinku ma ahan kuwa toosan balse waa kuwa angal ama qoloc yar ku jiro si biyaha oo dhan ay u gaaraan barkada weyn ee loo sameeyey in lagu keediyo biyaha roobka haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah marka biyaha roobku ay ku shubmaan barkadan maxaa dhacaya xaggeese la geenayaa marka ay biyahani ku kaysamaan roobkuna uu istaago barkadahan ayaa leh tuubooyin waaweyn oo laga xakameyn karo biyaha ku jira waxayna ku xiran yihiin barkada ka waaweyn oo ku yaala bannaanka magaalada kuwaasi oo loogu talagalay inay isugu yimaadaan dhammaan biyihii ay keediyeen barkadihii yaryaraa ee magaalada xaafadeeda ku yaalay marka ay biyahan isugu yimaadaan barkadaha waaweyn ee ku yaala bannaanka magaalada waxaa bilaabanaysa in la nadiifiyo kadibna dib loo celiyo magaalada oo laga faa'iidaysto haddii ay ahaan lahaayeen in lagu waraabiyo beeraha in loo adeegsado shaqooyinka ka baxsan cabitaanka iyo wixii la mid ah magaalooyinka qaybtood waxay leeyihiin mashiino awood u leh inay si gebi ahaanba biyahani oo dhan ay u safeeyaan kana saaraan qashinka iyo bakteeriyada soo raacday kadibna caadi loo cabo dabcan roobku waa nimco ilaahay noogu galaday haddii aynu nimcadan ka faa'iidaysan weynana xilliyada qaybtood waxay isku beddeshaa mid gilaafta nolosha kumanaan qof samaynta mashaariicda noocan oo kale waa run waxay u baahan yihiin dhaqaale laakiin dhaqaalaha maanta lagu maalgashto waa mid laga faa'iidaysan karo 100 sano iyadoo aysan deegaanka iyo dadkaba wax dhibaataha ugu iman roobka iyo biyaha soo fakada xilliyada qaybtood